waa mid ka mid ah haweenkii ugu saamaynta badnaa abid dhanka basaasnimada. waa caqligii ka dambeeyey qaabka ay u samaysan yihiin dalalka carabtu. iyada ayaana naqshadaysay xuduudda iyo hannaanka xukuumee dalka ciraaq, urdun iyo qaar kale oo badan oo ka mid ah dalalka carabta. gertrude bell waa basaasadii u adeegtay reer galbeedka, carabtuna ay ula baxday amiiraddii mu'miniinta. gertrude bell waxa ay ka soo jeedaa deegaan dhanka waqooyi ka xiga magaalada london oo lagu magacaabo washington oo haatan ka tirsan sunderland. 14 bishii toddobaad ee sanadkii 1868 ayay u dhalatay qoys hantiilo ah oo ku tilmaamnaa dhinaca warshadaha. inkastoo ay yaraanteedii ahayd qof aad u fudfud oo marar badan ay darteed shaqaaluhu guriga uga tageen, haddana markii ay 18 sano jirsatay waxa ay noqotay gabadhii ugu horeysay ee jaamacadda caalamiga ee Oxford ka qaadata shahaado sharafta kulliyadda taariikhda oo ay safka hore ka gashay kadib 2 sano oo ay dhigatay kulliyadda culuumta taariikhda. markii ay ka qalin jabisay jaamacadda, markiiba waxa u soo gacan taagay hantiilayaal doonayay inay nolosha la qaybsadaan, iyadoona ay qoyskeedu arrintaas aad ugu qalqaalinayeen. gabadhaas oo aad u jeclay dalxiiska iyo buuro korista ayaa muujin jirtay inay ka caqli badan tahay nin kasta oo soo doonta, iyadoo marar badan ay hooyadeed ku canaanatay inay meel iska dhigto caqligeeda badan iyo aragtideeda dheer markii la soo doonto ay qoys samaysato. gertrude bell ma aysan yeelin arrinka ee waxay ka codsatay aabbaheed inuu ka saaro magaalada london oo ay ku soo wareegto qaarad u ekaha hindiya, jasiiradda carabta ama meel kasta oo ka baxsan qaaradda yurub. aabbaheed margaret ayaa ka oggolaaday codsigeeda, waxaana uu bil kadib u diray magaalada dahraan ee dhulka iiraan, halkaasoo uu safiir wakhtigaas ka ahaa nin abtigeed ah. muddo kooban oo ay joogtay iiraan waxa ay baratay afka, dhaqanka iyo taariikhda dhulkaas faca weyn. sidaas ayay ku bilaabatay qisada gertrude bell iyo bariga dhexe. dhowr sano kadib booqashadeeda iiraan, waxa ay dagaalkii koowaad ee dunida ka hor bilowday socdaalkii saxaraha oo ay cagta ku soo marisay qabiiladii carbeed oo ku loolamayay jasiiradda carabta, ciraaq iyo dhulka shaam. waxayna soo kala baratay dhulkooda, abtirsigooda, dhaqankooda, hoggaankooda, habfikirkooda iyo xitaa xurgufaha ka dhexeeya. inkastoo aysan qarsoodi ahayn qorshihii boqortooyada ingiriiska ay ku doonaysay inay ku majaxaabiso khilaafadii islaamka ee cusmaaniyiinta, haddana gabadhan ingiriiskahi waxay xidhiir qoto dheer la yeelatay duwabkii qabaa'ilka carbeed ee wakhtigaas, kuwaas oo ay hadiyado iyo hadal macaan ku kasbatay. gertrude bell waxa ay ku beerlaxawsatay carabtii reer baadiyaha ahayd inay ugu timid jacayl ay u qabto dhulkooda saxara ah, ayna la raadinayso xuquuqdii kaga maqnayd khilaafada islaamka ee cusmaaniyiinta. waa falsafadii u furtay ridaha dhulka carabta, iyaduna tallaabo u soo qiimaysay goobaha ugu istiraatiijisan dhulkaas oo aan horay xog badan looga hayn, taasoo gogolxaar u ahayd qorshihii gumaystaha ingiriiska uu ku doonayay inuu kula wareego jasiiradda carabta. durba saxaraha lamadegaanka ee carbeed ayay si kadisa ugu kulmeen t lawrence oo markii dambe loo bixiyey lawrencigii carabta. ninkan ayaa dhulka carabta ku soo galay inuu cilmi baaro yahay, balse markii dambe wuxuu u xuubsiibtay caqligii ka dambeeyey qorshihii lagu riday khilaafadii islaamka ee cusmaaniyiinta, isagoo safka hore kaga jira jawaasiista adduunka ugu saamaynta badan. inkastoo filimka laga sameeyey ee loogu magacdaray boqoradda saxaraha queen of the desert uu ahaa qorshihiisu in lagu qurxiyo sooyaalka jaajuusadan oo sannado dhow ka hor si fiican loo fahmay hagardaamadeedii iyo khiyaamadeedii ay ku waday dadka carabta. isla filimkan ayaa lagu muujiyey doorkii halista badnaa ee basaasadana ay ka qaadatay samayntii xuduudaha iyo boqortooyooyinka carbeed ee iyadu gacanteeda ku taagtay, kuwaas oo dabadhilif u noqday reer galbeedka. sida filimkan lagu muujiyey taariikhduna ay horay u diiwaan gelisay, waxay saxaraha kula kulantay muddo dhowr daqiiqo ah 2 wiil oo walaala ah kuna abtirsada qoyska qurayshta, kuwaas oo ay horay ugu ballan qaaday inay boqorro noqon doonaan. labadan midkood oo yaaban ayaa weydiinaya sida boqor ay ku noqonayaan. durbadiiba kan kale ayaa la soo booday inay tahay qofta boqorrada samaysa. arrintan ayaa xaqiiqo noqonaysa kadib markii labadaas wiil ay u kala dhiibtay dalalka urdun iyo ciraaq. cid kalena ma ahayn ee waa boqor cabdallihii asaasay boqortooyada maanta ka jirta dalka urdun
iyo boqor faysal oo isna muddo ka talinayay dalka ciraaq. haweenaydan ayaa noqotay qofkii ugu saamaynta badnaa dalka ciraaq kadib markii boqor faysal ay ka dhigtay boqorkii dalkaas, iyaduna qalinka u qaadatay sidii ay u jeexday xuduudda ciraaq, kuweyt, sacuudiga iyo urdun, taasoo ilaa haatan u samaysan qaabkii ay u dhigtay waagaas. waxaa kale oo xusid mudan inay tahay qofkii hoggaanka ingiriiska ka dhaadhiciyey in dhulka xijaas laga asaaso boqortooyada sacuudiga, xilligaasoo qabiilada halkaas degganaa uu ka dhexeeyey loolan adag. waxayna soo jeedisay in la taageero cabdilcasiis aala sacuud oo ah aabbaha boqortooyada aan maanta wada naqaano ee dalka sacuudi arabiya. kadib 57 sano oo ay ku galgalatay dhulka carabta iyo islaamka, ahaydna caqligii yagleelay kuraasta ay maanta ku fadhiyaan duubabka carbeed iyo xuduudahooda maanta aysan ka tallaabi karin shucuubtoodu, waxa ay ku geeriyootay magaalada baqdaad sanadku markuu ahaa 1926, iyaduna janaaso ballaaran halkaas loogu sameeyey, waxaana ka qayb galay janaasadeeda madaxdii carbeed ee iyadu saldanada keentay. waxaa la sheegaa inay u geeriyootay kiniinka hurdada oo ay iska badisay. intii ay noolaydna waxaa boqortooyada ingiriisku ay guddoonsiisay biladda ugu sarraysa ee boqortooyada, taasoo lagu maamuusayay xogtii qaaliga ahayd ee ay ka soo ururisay dhulka iyo qoysaska carabta iyo dadaalkii ay gelisay sidii loo burburin lahaa khilaafadii islaamka ee cusmaaniyiinta. warbixintan waxaa diyaarshay soona turjumay maxamuud albashiiri, waxaana soo jeedinaya cabdirasaaq jubba. intaan dib u kulmayno sidaasna nabadgelyo.